أنا وحن كهليا وحكى كهل مايو نما كنا معارض مايو نما كنا معارض مايو ناقتي waxay tiri naagiman nin leh anna waa afdad rag wax lagu mahmaahin hayantiida waxaan iri war saddexda bilood ma sugi karno ee meesha ka deg kii hadan abashadaha way igu soo diray dadkii joogay baa joogay iidii waxaan laba wiil baan lahay mid baa xalaqa shay abdi wali ilaahi baan kugu dhaariyay saddexda bilood ma dhawri karno amaarki kama leeyay muslim baa tays asil baqtinay taas waa taas horta intaas ma ardo ugu filan maalka wax la galiyaan anigu ma aqaani oo iga horeeyo 10 goor baan galiyay marka ninkii diirayo waxa uu diirayaa macaarada anigu macaaradi ma ninkaas waxaan ka hadlayaa lacag bay soo diraan mali anigu lacag kama rabo waaba gaboobay bariya maalin ilaahay iska dhaafo bil baa hadhay sidaan u malaynayo kowde ila Abdullah Ciise baan soo joogay boy baan aylka ahaa iska Talyaaniga boy ahaa ila Abdullah Ciise wax maxbuus intaasoo kuna soo daayay labadan wiil ma arag soo waxa garateen maaha Abdullah Ciise wafti baa dhowr goor oo meel kasta ku tagay buraabirinta xataa waxbaan ka hayaa ilaahu Abdullah Ciise ku caaqibay gaaladii Allahna Abdullah soo dhaxmaray markaas ay wada gamiireen intay garteen ilaahu Abdullah Ciise aan joogay war labada wiil oo dhowrka kun oo maxbuuska soo daayay oo lacagtii leeyna ka cafaydeynka ahayd oo ila Maxamed Siyaad ma fahamteen oo lacag laga ballan qaaday oo lacagtii loo cafay oo haweeney inoo keenay yaa haweeney laga maamuli jiray meesha la magaceed war soo damiir ma lihidin wallahi soo damiir ma lihidin yaa war labada wiil hal la shaqeeyo waxa la yiri tuugo kula taalko tabka ma weydo meesha la yiraahdo shabaabka boqolkiiba 90 xamar bay joogaan yaa baabiin kara waxay ku leeyihiin magaciis mu baabiyo ninka la yiraahdo farmaajo ma baabiin kara kuwa la shaqeynaya askarta shabaaba anna waa la soconaa labiya sideeta jir baan hay soo jabay saddex qaarood baa leeyahay xiray marka wayla degay doon wayla degtay hadda idinku mucaarad ku tiina mucaarad ku noqonina waxa aniga ilaa leeyahay wax mucaarad ku ah oo aan ilaahay aqoon oo wada mucaarada oo wilabada wiil waxa weeye hal la shaqeeyo anigu Puntland ka hadli maayo illa ma ninkan ka hadli maayo Puntland aabeedii caarkeeda was kowde labada wiil war hadaadi xagga ka timaadeen la shaqeeya ima soo marin labada wiil oo kale boosadii bay noo soo celiyeen hawadii bay noo soo celiyeen wariya soo celiyay ila Maxamed Siyaad ka bacdi hebel baa soo celiyay dhahaya waynka mucaaradayeen yaa anigu labada wiil hala shaqeeyaan la hadalkeen waa ka baxay